لبا بسم الله waxaa ilaahay mahadiya maanta inuu halkaan nooga furmay shir ku saabsan in la dardar geliyo la nooleeyo lana najixiyo dib u heshiisiintii sanadkii hore ka bilaabatay magaalada Gaalkacyo shirka waxaa ka soo qayb galay xubno dowladda federaalka oo ay asaas u tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasiirro ka socda maamul goboleedyada waxaa ka soo qayb galay hay'ado badan oo hay'adaha nabadda iyo deganaanshaha waddanka kaalmeeya qaarkoodna horay u shaqaynayeen qaarkoodna waxay danaynayaan hadda inay qayb ku daraan hawsha socota dadkaas faraha badan oo ka soo qayb galay shirkan waxaan rajaynaynaa inay gabagabeeyaan in xoogaaga yaroo culayska ah oo markaan dambe galay daadihintii shirka oo weliba xagga dhaqaalaha iyo arrimo la xiriira ay culays ka soo fuulay in arrinkaas lagu dhammeeyo maanta go'aan fiican oo waxtara dib u heshiisiinta iyo nabadda Gaalkacyo ka socota waxaan rabaa inaan intaas ku daro Gaalkacyo dadkeeda deegaanka oo labada dhinaca iyo labada maamul oo magaalada labada dhinac ka kala taliya labaduba effort xoog la geliyeen in la helo nabad iyo dib u heshiisiin labada dhinac ee magaalada waxaan shaki iiga jirin arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Gaalkacyo inay Gaalkacyo u leedahay dad ku filan waxaad moodaa meesha xoogaa nuqsaantu ka jirto inay tahay ka warqabka looga baahan yahay dowladda federaalka iyo hay'adaha arrimahan dib u heshiisiinta iyo nabadeynta ka shaqeeya inay taageero siiyaan waxaan isleeyahay haddii taageeradaas la helo booliiskii loo sameeyey magaalada oo labada dhinac ahaa odayaashii guddiga odayaasha oo loo qabtay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta magaalada iyo inta kaloo faraha badan oo niyadda wanaagsan amaba loo abaabulay inay hawshaas qayb ka qaataan way ku filaan karaan sidaas aawageed waxaan shirkan rajaynaynaa maanta inay nooga soo baxdo natiijo taageero buuxda loogu helo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalada Gaalkacyo aad iyo aad u mahadsantiin